بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا شرفت له ku xiran barnaamijka Halabaar waxaan ku soo dhaweynaynaa mar labaad barnaamij kale oo xiiso badan oo aan kaga hadli doono biyaha sidaan hore idinku ballan qaaday waxaan ka hadalnay biyaha saameynta caalamka ku leeyihiin biyaha Soomaaliland ku jira dhulka hoostiisa marka maanta waxaa martiin oo ah injineer Mustafa Saalax oo ku takhasusay geophysics sidoo kalena bartay culuum kale oo kala duwan isaga caawa ka wareysanayna barnaamijka biyaha ku soo dhaw Mustafa barnaamijka Mustafa waxaan ugu horreyn ku weydiinayaa inaad si guud u faahfaahiso sida ay biyuhu sameysmeen iyo halka ay ka soo jeedaan aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha TV-ga iyo Cabdiraxmaan oo aad hawshaasi in badan uga shaqeeyay barnaamij sanoo kale qabanaa aad loo tahay muhiim u tahay dadka iyo dalka biyaha marka la yiraahdo inaguna garoobka halkaynu kaga naalno leego waxa weeyaan shay aynaan sina marnaba u dhiirsan karin guud ahaan biyuhu waa nolosha waynu ka raacnaa marka waxaan aad idinku mahadnaqayaa barnaamijkan oo kale sidan oo kale inaad qabataan oo ummadana waxyaalo badan aynu u bayaanino siiba biyaha noocyada biyaha ee dhulkeena ku jira halkaan u soo noqdo su'aashani aad ayay adduunka ugu soo noqotay siiba culimada fiisikiska marka waxay yiraahdaan argument fara badan ayaa jira waxa la yiraahdaa biyuhu asalkooda waxa uu la sameysmay markii uu dhulku la sameysmay waxay yiraahdaan qayb kamid ah culimadaasi wuxuu ka yimaadaa biyuhu samada ayay ka yimaadaan oo waxa keena astroorka iyo waran cireedka meteorka ay yiraahdaan waxa markaasi taariikh dheer baa la taxayo gaaraysa 4.5 billion years ago 4.5 bilyan oo sano horteed waa waqtigii ay yiraahdaan culimada sayniska ay yiraahdaan singularity ayaa jiray macnaheedu waxa jiray bay yiraahdaan kudlad yar oo gravity si yar isku haysata kadibna taa ayaa qarax samaysay qaraxii markaasi samaysmay ayaa waxa ka samaysmay bay yiraahdeen curiyaashan imika aynu naqaano hal curiyo kamid ah oo ah nitrogen baa dameysay nitrogen tiba hadana isku dhacday helium baa samaysmay helium kiiba hadana isku dhacay lithium buu sameeyay lithium kiiba isku dhacay boron buu sameeyay boron kiiba isku dhacay waxa uu hadana samaysmay hadana carbon curiyaha toddobaad periodic table marka aad curiyaha toddobaad ayaa markuu ku taagnaa ayaa wax soo gasho oxygen asalba marka biyuhu sidaynu naqaano waxay ka samaysan yihiin oo aynu iyada garanayna waxa ka samaysan yihiin hal positive charge oo hydrogen ah iyo hal negative charge oo iyaduna oxygen ah marka waxa la yiraahdaa intramolecular force baa la yiraahdaa oo waxa weeye kudlad isku xiran hydrogen bomb bay markaa samaysaa laba neutron oo hal shal bay leedahay asal baa oo waa curiyaha koowaad wareegeedina waa 360 degree halkay sirta ka tahay halkan baa markaasi au ku wareegaya wareegaasi markaasi au ku wareegayo shalkiisa uu ku wareegayo ayuu dabadeedna wuxuu doonanayaa mid kale oo positive ahaa negative doonaya haduu negative ahaa positive doonaya dabadeedna halkaas ayaa waxa ka samaysan bay yiraahdaan kulada yar oo biyaha ayaa ka sameysay markan laakiinse ay taariikhda sheegayaan ay leeyihiin big bang ay ka soo bilaabayaan waqtigii qarxu dhacay ay ka soo bilaabayaan waxay leeyihiin mid waliba mid bay ku dhacday ilaa curiyaha dabadeedna sideedaad oxygen ayaa saa ku sameysmay kadibna dhul cirkii oo dhan markii qarxu dhacay wuxuu noqday dhas yar oo wareegaya hawadii dhaskii baa dabadeedna 1.5 billion years hal bilyan iyo badh ayuu isku ururiyay dhagaxaan yar isku ururiyay kadibna dhulkii ayaa sameysmay dhulkii dabadeedna isagoo sidoo u sameysan oo asalna waxaan garanaa dhulku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood ama 4 qaybood marka xataa nucleus-ka ubucda la keeno marka moohada tan ay yiraahdaan volcanic marma soo baxda
ayaa gebigiisu dhulku markaasi waqtigaasi aw haabay yiraahdeen waqtigaasi waa waqti laga joogo markaasi 2 milyan iyo badh ayaa laga joogaa markaasi waqtigii qaraxu u dhacay bay yiraahdaan waqtiga ay leeyihiin ayaa waxa isla space-ka laftiisii iyo qaraxii ka sameysmay asteroids waxa nimankaan dhahdo iyo meteoroids kuwaas dabadeedna half billion sano ayay garaacayeen dhulka oo mooha marka asteroidkan iyo meteoroidku wuxuu wataa macdanta la yiraahdo proxinka macdanta proxinka la yiraahdo dhulka laga helaa siba inaga waqooyigeena oo kale waxaan ku arkay buurtan almis oo kale proxinkaasi waxa uu la falgalaa macdanta la yiraahdo olafinka ee greenka ayuu la falgalaa marka ereskraska dhulka la kabkiisa sare oo qaybta biyaha haysa ayuu markaasi oo fadhiya wixii underground water inuu ka hadlo doono iyadana ayaa de wixii hayay curayaasha hayay ayuu kamid yahay marka kan uu ka kooban yahay asteroidkii baa dabadeedna dhulkii bumping ku sameeyo garaacay half million sano ayuu garaacay kadibna markaasi biyihii yaraa ee ku jiray isaga xogaa yaro biyaha ayaa ku jira biyihii yaraa ee ku jiray ayaa markaasi noqday markaasi inay ku bataan dhulkii isla markaana qaboojiyaan kadibna waxa daboolay barafkiina hadana asteroids kale ayaa soo dhacay asteroidskii baa dabadeedna oceansku iyo bado ay ka sameysmeen oceanskii baa dabadeedna waxay yeesheen oo meteoroidkan iyo asteroidkan waxay ay badda markay fadhiisteen waxay kula sameeyeen black carbon ay sameeyeen black carbon kii baa dabadeedna wax kala shabay yiraahdeen unuga yar oo salis yar oo waxa sameysmay yiraahdeen bacteria saliskii sameysmay ayaa dabadeedna waxay dhaliyeen inay iyaga laftoodiina ay sii daayaan qac kale kadibna oxygen-tii ayaa badii ka soo baxday layerkiiba hadana ay tagtay sidaas dhulkii oo sameysmay marka dhulku waqtigaasi ay ka sheekeynayaan ay leeyihiin ilaa laga soo bilaabo qarax markuu dhacay ilaa 3 milyan oo sano ayaa dhulkii oo wali qaybna ay tahay lakab naara qaybna ay tahay biyahaas oo laakiin wax protection oo ka ilaaliya cadeeda iyo shucaaceedii ayna jirin ayaa 10 saacadood bay saacadu ahayd wareega dhulku iyo access-kiisa uu ku wareegay marka 24 saacadood waxa uu haabay yiraahdeen inta u dhaxaysa 8 ilaa saacadood ilaa 10 saacadood dayaxda marka muu jirinay waxa toos ay falaaro halka ku soo dhacay meel macni bilaadan ku noolaado ma yahay isla markaana biyo ayaa joogay ay saynisyahanada Stephen Hawking oo kale iyo odaygii la oran jiray Albert Einstein iyo mid kale oo Williams ay yiraahdaan rag badan oo fiisiisa ayaa dooda noocaasi ay qabaan kadibna xabad dhul ah oo dhulalkii dhaska yari ka sameysmay oo imika marka la eego Mars leeg birah ayaa dhulka ku dhacay sina asteroid kale oo soo dhacayo ayuu dhulka ku dhacay gigtii dabadeedna uu ku yiri dhulka ayaa qayb kamida dayax dhulka kamida ayuu dayaxi ka sameysmay dayaxi dabadeedna waxoogaa waa day wuxuu maamulaa wax la wixii biyaa isagu inta uu dayax sameysmeen dhulkooda maalinba habeen iyo maalintu ma isla kuleel kustan uu buskaha habeenkii iyo runbu qabowgu sameeyo waxa uu sameeyay measurement uu sameeyaa oo iyadu waa marka si kalena way dheeraanaysaa waxaan uga jeedaa dhulkii baa markaasi isagoo biyihiina leh isla markaana moohadina ay meeshii taalo qayb ka midihna ay qalashay ayaa waxa dhacay bay yiraahdeen inuu xidiga Mars-ka leeg oo dhulka ku dhaco kadibna qayb dhulkii kamid ah ayaa dilaacay oo ka go'day dhulkii sameysnaa kadibna wuxuu kiciyay mawjadii badda ayuu kiciyay mawjadii markuu kiciyay waxa la wax iska bedelay oo aan ahayn in access-kii uu 12 saacadood noqdo laakiin si aan kuleelka wax iska bedelin ayaa dhacday weeraad oo ma shirin baa wax kala kadibna waxay yiraahdeen 1 bilyan oo sano kadib ayuu dabeedna isagii dayaxay ka tagay halkii uu joogay marka hore halkan imika jooga ayuu tagay kadibna
waxuu noqday 24 saacadood mawjadihii baddu way degtay biyihii iyo kicitaankii ay biyuhu ka cayaan dhulka hoose iyo wax walba wixii dhulka ku noolaa oo isaguna dee u maamulo waxay yiraahdeen ilaa dhagaxa biyaha yar ee ku jira gravitationka dayaxa ayaa maamulo bay yiraahdeen mawjada badda maamula ayay ku xidhan yihiin biraha dabeedna sidaa iyagu halkan ay markaa sheegayaan iyagu markaa sidan ay leeyihiin ayay uga sheekeynayaan war waxay leeyihiin waa biyihii badda ayuunbay arrintaasi ahayd haddana mar kale waxay leeyihiin metroorka ayaa biyaha dhulka hoosena keenay underground waterka dhulkii haddaba iyo biyihii yaa sameeyey dee waxa sameeyey ilaahay baa sameeyey asal bana marka sayniska marka la eegayo sayniska qayb waxa jirta waxyaalo badan oo quraafi ah oo ku jira ha ayaa jira qaacidada hadii aad weedo wax nas cadana ilaa imka xataa gaalada culimada waaweyn waxay aaminsan tahay kol hadii wax weyn sheega kaliya ee ilaahay ku hadlay dhulka yaalla ee muqaddaska isagu markaasi isma diidi karaan qaacido sax oo scientific oo la cadeeyay isagu isma diidi karaan marka maadaama reference-kii ugu weynaa yahay biyo halkay ka yimaadeen markay noqoto ee qaab diiniyan iyo dhaqan ahaan inaga waxaan sameeynaa gudidii horumarinta dhaqanka ee sayniska ayaan nahay marka su'aal noocan oo kala oo kala weydiiyo taa scientific dhinac baad dhigaysaa laakiin se waxaad soo qaadanaysaa reference-ka quraanka marka isagoo horta ilaahay waa bidiicu samaawaati wal ard dhulka isaga sameeyay marka hore qarax hadda oo taa waan soo waafaqsanahay sayniska oo ilaahay quraanka wuxuu ku yiri awalam yaral ladina kafaru anna samaawaati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma kaloo meelooge oo ilaahay ka galo meelo garanay in dhulka iyo samooyinkuba ay wax ku soo isku jiraan ay ahaayeen dabadaan kala fujitaasi ama big bang ha noqoto sheegaya odayba waa agruum waxa jira khilaaf dadka ka dhaxeeya saynisyahaniinta badankooda waqtiyada markaas big bang ka kalmad halka ay ka timi nin diidana in la yiraahdo ilaahay baa abuuray dhulka oday ingiriiska ayaa diiday kalmad oo yiri waxayna leeyihiin wuxuun baa bam yiri dabadna erayga halka laga keenay big bang waa ka adoo qaraxun fafataqnaahuma wiilahay وجعلنا من الماء وإسرائيل لفتيني وجعلنا من الماء كل شيء حي يو حليل مترور با سو دحاي استرور با سو دحاي oo dhulka bamgareeyay intaas oo milyan oo sano ilaahayna wuxuu leeyahay markii aan kala fujiyayba isla markaana biyihii baan abuuray mid kale meesha ku jirta waxa weeyaan black hole baa imika jira black hole kali singularity ay sheegaan ee waqtigaas uu sameysmaa ayaa facts ay tahay inay meesha awuujiyay yahay black hole marka ma iraadadii ilaahayba mise waxa weeyaan looxul arshi waxa weeyaan iyadu waa mas'ala kale الله يعلم والله ما كرنا تايدا ما كرنا لكن سبيه مرة كله وضع سمسم لكن أنا كاين كده كوديني أعرف المختار يبقى قرآن إحنا نقول شيء الله ذا اللي هو أبو يومي لا باشا واللي كنت كتاب لها المحرمات يقولون بغير هذا يعني مليون ياس أعرف تكبر يلا تلفت ذو حوي أنت تيني نوع قاعدنا مقدار كاسي أي نوع قاعدنا marka horta inta maqraanka aan soo guuray halkan biyahan waxay leeyihiin halkan ilaahay wuxuu ku leeyahay wajacalna min al-maa'i kulli shay'in hayy wax walba biyo ayaan abuurkiisa ka sameeyay marka hadaba big bang ku dhacay ilaahay soo kor buu baxay oo sidoo sheegayo qaraxi ma dhacay summa istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan iyadoo qiiq iyo qaraxaasi jiro ayaan kor u baxay buu ilaahay yiri samada kor ugu baxay فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها تمام هو خالق صومه أمر بوسي هو حكيري صباح إذا أدي أحسن أما يكو الديزان كعليه تبدأ بحيرهن قال تأتينا طائعين ونكوه كان سنة هيو ونكوه مالي تبدأ وحول بوح وسمي قدر ها وخلق كل شيء فقدره تقديرا
qadarkaasi markaasi imika waxa la aaminsan yahay la yiraahdaa dhulku wuxuu ka kooban yahay guud ahaantii marka gloobka aan eegno 4 meelood 3 meelood waxa weeyaan biyo biyaha badda 71% hal meelna waxa weeyaan airskaas iyo waa dhulka boqolkiiba 70 waxa weeyaan waa biyihii macnaha dhulkaasi ku jiray jirka bini'aadanka ilaa dhagaxa ayaa leh isagu la fiiso qiyaas halkan waxaynu sheegnaa wajacalnaa min almaa'i kullu shayin xay wax jiri karaa ma jiraan existence wax nolol ahay ama adigu aad arki karto oo aan biyo u baahnayn ma jiraan allahuma inaad garan weydo siduu u nool yahay talo ayaa suuragal ah laakiin se wuxuu ilaahay quraan ku leeyahay xataa dhagaxa laftiisa ayaa intuu baqo ayuu biyo soo saaraa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قاربا انت يد العامبا من خشية الله عبد الله هاي إلهي بعاشدي أي دبنا أي بيك صباح واحد نورين يعني مكها وحين نورين يعني ونقول الرسالس أو عن المقابتها أي هذا دونان أي نورين يعني بلاد كواكل سوى شرب يجي سويه عادية لدي شركة بلادك boqolkiiba 60 ilaa 70 inta waxaysa ayaa dibiya biyahaasi hadii ay qiyaas yar oo kamida inta ilaahay ugu talagalay ilaahay wuxuu yiri khalaq kullu shay faqadarahu taqdiran qiyaastaasi hadii biyahaasi dhulku ku jira ama badda qayb kamid ay go'aan ay meesha ka baxaan nolosha geebeedu way baabaasaa ma jirayso way ilaahay wuxuu ku hayaa oo kaliya dhulka iyo halka layerka la yiraahdo traboboska oo horeeyo stratoboska ilaa dhulka inta u dhaxaysa ay biyuhu seerkooda ku joogaan dhulka ayay ka soo baxaan arkana kama yimaadaan meel kale ka yimaadaan ma jira waayo ilaahay wuxuu leeyahay kun fayakun buu ku sameeyay Soomaa dhulka oo ku abuurmay akhraja minha ma'aha wa mar'aha dhulka ayaan ka soo saaray biyihii ay isticmaal lahaayeen uumiyaha iyo makhluuqa ku uuman dhulka iyo wixii ay quudan lahaayeen mar'aa u ahaan lahaa isla taa waxa kale ku cadeynaya qoom nuux markii la halaagay رب لا تذر من الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلوي إلا فاجرا كفار وأكيد بدينا إلهي أمرك بحي لكسي سوداء فيها waxa lagu yiri cirka uu soo daa dhulku soo daa cirka la sheegay marka waxa weeyaan ma roob baa macnaheedu soo daay macnaheedu stratosphere oo ka hooseeya waa biyihii dhulka ka yimid ayuu bay ku cilin ka soo digayaan maxaa ku cadeynaya markii la yiri jooji ilaahay amarka uu siiyay wuxuu yiri qiila ya ardu li'i ma'ak dhulow biyaha dib u liq ويا سماء عقلعي إذا نشوف شباب الجوري سماء دي الروب يوم يشوكسو هلكم حكى تعالى قيل يا أرض أبلعي ما أكبر الهير ما أكذني بيهاجي شهر لوكا لوكا يا لوكا هلكم نوا كان كسي عطيري لهي أخرج منها من هذا الضمير كان وحنا نقول يا روكي معها ومرعاها ولا أسترود بانكين ولا مترود بانكين أصل بوحة كاني وحويان وإلهي الروك عيوك سميه سؤال شاد هذا ما نصنعه وقتي إلهي كابوري هل كان واحد شرته 4.5 بليون سنوات أيوه لقيت شو وقتي الروك سميس كيسيو بيك بانكو عيد علي أي ليه إلهي نوح ليه أنت صورنا ولا سوى سميني مر ضيح ولا سميني مر عدد ولا سميني مر كل بحبة سمي مر ما أولي سمي أو شيء بدل لي إلا مر كي تنبدأ أنا صارس أي ماتيري يو حتى بكتيريا وحياة بدنا بيشيء كان حتى أسرور بصور عيو لكن ستضم على الموضوع كل يكابور إلهي 7 days غير كي يسموه يكودن
ها هو خلق السماوات والارض انتنا طبعا شقيتي سؤال كبحين بيو kala duwan yihiin sida ka warqabno maxaa sababa sida kala duwanaanshaha caasaba waxa sababaya laba shay baa sababa biyo asalba marka ayeen cycle bay leeyihiin water cycle baa jira water cycle kaasi waxa weeyaan biyo dhulka ay ka yimaadaan saynim ka cadeeyay dhulka maadaama ay ka imanayaan la kabeer yaro la yaris oo evaporation baa dhaca dabeedna daruur baa samaysmasa daruurtii ayaa dhulka dib ugu soo celisa dhulka marka leebkiisii sare ayaa markaasi wixii bilaadanku cunayeen iyo wixii cabayeen ayay ka soo baxaan wa qadarka uumi baxa iyo qadarka soo noqonaya roobka ayaa isleeg qadarka waqtiga uu soo baxayo dhulka ka soo baxaya ee biyaha ee ama badda ka soo baxaya ama dhulkii ka soo baxaya ama geedii ka soo baxaya iyo waxa isleeg qadarkii kale dib ugu soo noqonay ismana naaqusmaan mana kordhaan iyadoo waa taasi taa weeyaan maxaa haldaba kala duwan roobkii marka uu soo doo biyaha asalba waxa la yiraahdaa laba nooc waxa la yiraahdaa soft iyo hard baa la kala yiraahdaa waa biyo adag iyo biyo jilicsan biyaha markaasi jilicsan waxa weeyaan roobku marka uu dhulka soo dhaco intuu dhulka iman intuu dhulka ku soo dhacan dhibco ayaa waxa la yiraahdaa wax bira ma wato isagu bira ma wato wax uriya oo kalaana ma wato marka waxa la yiraahdaa soft marka uu dhulka ku dhaco hadaba goobta uu ku dhacay dhulkii kamida ay biyihii ama soconayaan laagihii marayaan ama dhulkii hoose u quusayaan ay u quusayaan dabeedna hadhow dib loo soo saarayo ayaa waxa isku xiran nooca biyaha uu yahay kan cirku isagu waa single waa mid kaliya waa soft water waa biyaha kaliya laakiin isagu ayaa waxa ku xiran halka uu ku degay macdantay ka koobnayd مثلا أنا سومالي لانك سوقادنا ميلان كله أو كله أدوية كله هذا مسكنا عفنا أنتين أنا نطع سومالي لان وكله هذا الران رجع حلا يراه الله مستنك وحنا كسر يسوي هاي كالسيوم كربونات وحنا معني واردنا هدي بيوم ربروك أو كدو كالسيوم كربونات كاسي أي بيه يجوا صعدة أما الضحية دي صعدة أما القواصة صعدة أي صو مران دهنا كالسيوم هيدروجين كربونات أيو نقطة بيها سمر كاسي وبيها إن الله أنت حياته ودم أولا إنسان كاسي لو كنا وياه بورتها بدون مركز عليك وقوي يا صار على جوليسك إلا هالك عنو لك جلي جوليس تاوي حيكه صحيح وقوية يا أما الله إنه رهنو اللي بدقت أما إنه حابنا رهنو الله إنسان كاسي وكبدية نقول هانو كله بربرة وكله بيها سوى بيها دنا وبيها هذا قوية بيها هذا وحوية معني لك حاسي لام ستانك أياكو بضا أو صوابية هل كان مركز يكتوه كله بربرة قيبر عنك السوحية إلا ربطه إيو أذكر سوقاته وحكلوه شراء إلا مركز كقاطه هل كان حيد كسليته كله ليرة كروجا بح إلا هل كان قدمه بيعس أو سناجة كجلي وحوينا وحيا الله هل كان وراح كلو واحد شراء يسونا جيبسون ليرة لقى حق جيبسون كليرة ماشي أو كوبديه كالسيوم سلفيت بالنقطة كي هو كالسيوم روحها كالسيوم كربونات كالسيوم سلفيت بالنقطة وريحان كالسيوم ك أيام ما يبيه ملايا كدبنا نوع بيه أيام مركزي وبدلية بيه أذق أو نقطة مركزي يسونا أبيتانك وير أريه أو ريبة لبضة واحد كا معان كان الله مستنك أيا كان معان أمره كمان لبربطيو لام ستون كاسي مركاسي يو دغحانتا امريو داد اي بيو مريان iyo waxa isku xiran nooca biyo ay noqonayaan hadii underground water ay yihiin oo biyo dhulka hoose ay yihiin biyahaasi waxa uu socodkoodu wuxuu ku xiran yahay particles ka dhagaxu yahay ama limestone ku yahay ama gypsum dhagax la yiraahdo yahay ama gravel dhagaxanta yar ay yihiin hadday yihiin mid isku uqfan biyihii waxa weyn xawaari ku soconayaan sax milankoodina oo badanaya hadii kale waxay noqonayaan mid fadhiya
marka maadaama socodkii badanayn socodku maadaama badanayna milan badan ma sameynayaan oo milax badan ma sameynayaan daawadayaal waxaa sida la socotaan barnaamijkeena meel xiisa badan buu noqonayaa marka inta waxaan kusoo gabagabayn doonaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waa mahadsantihiin sida sharafta leh noo daawateen barnaamij labaad oo qayb labaad ah ayaan idiin soo gudbin doonaa waa mahadsantihiin